In ka badan 100 xubnood oo ka mid ah Qurbajooga SSC ayaa si weyn u soo dhaweeyay kulanka madax dhaqameedka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ay ku qabsadeen deegaanka Hadwanaag ee gobolka Sool. Qurbajooga deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya inay aqbalaan codsiga madax dhaqameedka ee ku aadan in haddii wadahadal lala galayo Somaliland lagula galo qaab qabiil ahaan. Waa kuwan liiska magacyada Qurbajooga ee taageeray madax dhaqameedka ku shiray deegaanka Hadwanaag ee horey loo oran jiray deegaanka